الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. baabkan wuxuu ka hadlayaa sunanimada in la jeclaaday ay sunana tahay salaamta in lagu celiyo. qofaad salaamtay haddana mar kale qofka ay soo noqnoqoto ee la kulankiisa inaad la kulanto calaa qurbi meel dhow aad kala kulanto. hadeer baad la fadhiday, waa tagday, haddana waa soo noqotay, haddana waa tagday, haddana waa soo noqotay. mar welibaa soo noqoto oo dhihi meesha hadeer baan salaamayo haddana marka inaad salaamto. xitaa hadduu kala teedo dhexdoodii shajaratun wanaxwuha, geed ama wixii la mid ama derbi, waad baxday, albaabkaad ka baxday, haddana waa soo noqotay oo haddana inaad mar kale aad salaamto ayuu ka hadli doonaa baabka. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته بنك الله كي صلاة دي سيحمي نمبا جريو المسيء صلاته بنا الله بحيي المسيء صلاته كصلاة دي سيحمي محوك حمي qaabka loo tukado salaada loogu talagalay buu ilaalin waayey. nin saxaabiguna ahaa intuu yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka uu dhex fadhiyo buu soo galay, salaad buu tukaday. subanuu isaguu fiirina, ninkaa buu ku maqnaa. markuu tukaday buu u yimido rasuulkuu salaamay, rasuulkana salaamtuu ka qaadayo markaa buu ku yidhi, war qof yahow irjic fasalli fa innaka lam tusalli, orodoo laabo soo duko, waxaad dukatay salaad ma aha. ninkaa u fiirso, masaajidkay ku wada jiraan. maxalu shaahidka usoo qaatay ee imaamu nawowi mu-alifka kitaabka, mar alla markuu tago soo dukado uu yimaadaba assalaamu calaykum buu dhihi jiray. haddana weli maadan tukan uu tagayo salaad buu ku soo celin. markuu soo noqdaba rasuulkuu salaamay. waa sida ruux hadduu kaa tago kaa maqnaado, walow waxa weeye maqnaasho badan bay noqon oo mar kale hadda inaad salaamto haddana mar kale aad salaamto. ilaan salaamtu waa cibaado, duco weeyaan, ajir baadna ku leedahay, cibaado weeyaan. salaamtu waa cibaado, waana duco, waana ajir. wataanu soo marnay ka yidhi assalaamu calaykum cashrun, waa 10 buu rasuulka la yidhi. assalaamu calaykum waraxmatullah 20 waa 20 buu yidhi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu 30 soddon weeyaan buu rasuulka la yidhi. 30 ajir weeyaan. marka cibaado weeyaan, ajir maxaa kaa dhibay? nabadgelyo dushiina allah yeelo qofkaad u leedahay, adna marka sidoo kale dushaada allah yeelo, isagana uu ku leeyahay nabadgelyo. duco weeyaan, waana cibaado. marka ninka almusii salaatahu annahu isaga jaa wuu yimid, fasallaa wuu tukaday, masaajidku soo galay wuu tukaday. markuu tukaday buu uma ka gadaal jaa yimid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nebigu uu yimid. fasallama calayhi, nebigu salaamay, assalaamu calaykum waraxmatullah. faradda calayhi salaama, rasuulka allena salaamtuu ka qaadayo wacalaykum assalaam buu yidhi waraxmatullah. faqaala ka gada rasuulka alle wuxuu ninkii ku yidhi, irjic war qof yahow orodoo laabo, fasalli tuko, fa innaka lam tusalli, adiga maadan tukan, waxaad tukatay salaad ma ahee, orodoo salaada soo hagaaji. farajaca ninkii wuu noqday, wuu laabtay, fasallaa wuu soo tukaday. uma jaa haddana mar kale ayuu yimid, fasallama cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam, nebiguu salaamay. u fiirso, hadeer buu salaamay, ma oran hadeer baan salaamayo, haddana mar kale buu salaamay. xataa facala dalika 3 maraatin, 3 jeer buu sidaa ka yeelay. 3 jeer uu tagayuu soo tukanaya, markuu yimaadaba rasuulku salaamaya, rasuulkana salaamta markuu ka qaado wuu u leeyahay
warqof yahow orodoo tuko waxa soo dukatay salaad lama yidhaahdo. maxalu shaahidka xadiiska loo soo qaatay waa qofka markaad ka maqnaataba usoo noqoto salaamto, haddana aad ka baxdo timaado salaamto, taa weyaan. laakiin qofkan saddex markii hore maxaa loo bari waaye, muxuuna ku ciyaaraya, salaadiisii maxaa ka qaldaneed? salaadiisu waxay ka qaldaneed bay culammadu leeyihiin atumaniina buu ka tegi jiray. salaadaan lagu xasilin weyaan, rukuucan lagu xasilin, ictidaalkon lagu xasilin, sujuudahoon lagu xasilin salaad ma aha. sababto atumaniina fi salaati waa rugni arkaanta salaada ka mid ah. markuu yidhi yaa rasuul allah 100 jeer iyo ka badan haddaan tukadana tan hadeer aan tukanayo unbaan garan, facallimnii yaa rasuul allah yidhi. rasuul allow ibar hadeer qaabka loo tukada bal ibar. goorta xikmadda halka ay ku jirto waa maxay? rasuulka alle wuu daayey, waxba uma sheegin. markuu iskeenay uu yidhi inaan wax bartaan rabaa, markaabaa la baray. halka maxaanu ka fahmaynaa qofku markuu jacayl isagu u qabo inuu wax barto isu soo dhiibo unbaad wax bari kartaa. laakiin qof waxbarashada ka santaagay amaanba u jeedin goormuu wax baran ma baran karo. cilmiguna ku doonan maayo, adaad doonanayo. wanaagga cilmiga inaad doonata waya. ruuxa markuu isdhiibay yidhi yaa rasuul allah ibar markuu yidhi baa la baray. 3 jeer buuna soo tukaday, waxa tukatayna salaad maaha uu rasuulku u lahaa. laakiin marka jacayl cilmi la geliyey qalbigiisi uu ku ogaaday yaa rasuul allah inaad ibartaan kaa raba. markaa buu ku yidhi salaada markaad aad u tagdo aad rabto inaad u imaato salaada aad tukato awal horta fa asbiq ilwuduu, wayse dhammaystiran oo kaamila soo qaado. uma ka gadal fakabir salaada xiro. uma qra' maa tayasara macaka min alqur'aan, qur-aanka intaad ka taqaan faatixada bay u horeyso, ilan faatixa la-aan salaad ma guntanto iyadoon faatixa la aqrin. uma arkac buu yidhi ka gadal rukuuco xataa taطma'ina raakica, ilaad kaga xasisho rukuuc. allahu akbar samica allahu liman, iyadoon si fiican ba loo taagnaanin. haddana haddaad sujuudda u dhacdo salaadaad tukatay baan jirin, ma aadan tukan weeyaan. salluu kamaa ra'aytumuunii usallii buu rasuulka allena yidhi sala allahu calayhi wasalam. wardadow qaabkaad igu aragteen ambaan u tukanaya idinkuna u tukada, haddii kale salaadiinu salaad noqon mayso. salaad nebi u tukaday salaadaan in haddii la tukado iyaduna cilmi bay u baahan tahay. dadkuba waa tukadaanoo duka ma aha. dadkii nebiga la joogay sala allahu calayhi wasallam isagayba ku dayanayeen. inaguna kutubaday noogu wada qoran yihiin qaabku nebigu u tukan jiray. arkaanu salaati maxay yihiin, waajibaadku muxuu yahay, sunnooyinkana hay-aadkana mubdilaadkuna waa maxay, maxaa salaad buriya, intuba kutubaday ku wada qoran yihiin. ruux weliba inuu barta waya. marka muttafaqun calayhi buu xadiiska ahaa. weli baabkan gudaha ugu sii jirnaa. wa canhu ay can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. abuu hurayra rasuulka alluu ka wariyey. qaala rasuulka alle wuxuu yidhi idaa laqiya axadukum akhaahu, midkiini hadduu la kulmo walaalkiisii muslimka ayaa la tilmaamay, ila muslimiintu walaalo weeyaan. falyusallim calayhi, ha salaamo. walaalkaagii muslimka mar alla markaad la kulanto salaam. fain xaalat hadday dhex gasho baynahumaa dhexdoodii shajaratun geed, intaas salaamtaybaa meel baad ka soo wareegaysa, geed baa idin dhexgalay oo idin kala qariyey. aw jidaalun ama derbi, aw xajarun ama dhagax. uma laqiyahu ka gadal uu la kulmo haddana falyusallim calayha salaamu. ilan salaamtu wata haddeeraan soo tilmaamnay, salaamtu waa cibaado, salaamtu duca weeye. maantuu dhan haddaasa salaamta maxaa dhibaay? filjanna marka la tago dadku war kale maqli maayaan buu rabbi yidhi. laa yasmacuuna fiiha lagwan walaa ta'hiiman ilaa qiilan salaaman salaaman bay maqlay. ilaah baa salaaman leh, malaa'igtii baa leh, iyagii baa iswada leh. salaam baa la maqlay. ilan salaamtu duca weeyaan, salaamtu cibaado weeyaan. marka haddaad waxeer ka maqnaato timaadana falyusallim calayhi, ha salaamo ee midkiini walaalkiisii. abu daawuud baa xadiiskaa wariyey. baabu istixbaabi salaami idaa dakhala baytahu. baabkan wuxuu ka hadlayaa in salaamta la jeclaystay ay sunno tahay ruuxa markuu gurigiisi u galo.
aqalkaagii markaad gasho reerkaagii aada salaamto, dadka gurigaa kuu degan, reerkaagii dadka meeshaad degan, xitaa saaxiibadaadii baad la degan tahay mitaal, iyagii baad salaamaysaa, reerkaagii, caruurtaadii, ehelkaagii baad salaamaysaa, dadka guriga degan. qaala allahu tacaala, rabbi wuxuu yidhi faidaa dakhaltum buyuutan, haddaad gurye aada gashaan, fasallimuu calaa anfusikum, naftiini salaama, ee walaalihiini salaama. waanu soo marnayo walaalkaagiibaa waxaa laga cabiray naftiisi, naftaadiibaa laga cabiray. markaad walaalkaagii salaamto aada u ducayso adoo isu ducayay oo kale weyaan. taxiyatan waa salaamitaan min cindi illaahi, ilaa agtii bay ka ahaatay, mubaarakatan ee barakaysan, dayibatan ee wanaagsan. ee isa salaama weyaan markaad gurye aada gashaan, oo midkiin reerkiisi ha salaamo. haddaan guriga la joogayna keligaagiibaad furatay, guri aan la degnayn, waxay culammadu ay sheegaan assalaamu calaynaa wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin baad oran. assalaamu calaynaa wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin. wacan anas bni maalikin radia allahu canhu qaala, anas wuxuu yidhi qaala lii rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka alle wuxuu aniga igu yidhi, yaa bunaya wiilkaygiyow, idaa dakhalta haddaad gasho calaa ahlika reerkaagi aada u gasho, fasallim salaam, yakun wuxuu ahaanaya salaamta aada salaamtay barakatan calayka, barakay kuu noqon adiga dushaadii, wa calaa ahli beytika, iyo ahlu beytkaagi reerkaagi barakay u noqon. ilan salaamtu waa duc, aday baraka kuu noqon, reerkay baraka u noqon. tirmidi baa wariyey, tirmidi wuxuu yihi xadiidku xasan weeyaan, waana saxiix. baabu salaami cala asibyaan, baabkan wuxuu ka hadlayaa caruurta yaryar in la salaamo, ilmo yaryar iyagoo ciyaaray, mumayis, ilmo waxa weeyaan oo wax kala sooci kara weya, 7 jir, 8 jir, 9 jir, 10 jir, in la salaamo buu baabka ka hadlayaa. can anas bni maalikin radia allahu canhu annahu anas mara wuxuu maray calaa sibyaanin, caruur buu dul maray, meelay wada fadhiyaan ama ay ciyaarayaan. markaa buu fasallama calayhim, uu salaamay. iyaga naftirkoodii tacaaliim bay u tahay caruurtu, khayrka iyo wanaagga la baraya. taa waa mid. ta kale waxa weeyaan waa sunno nabiga yeeli jiray sala allahu calayhi wasalam, caruurtu salaami jiray, kaga dayasho weeyaan. ta saddexaad waxay tusin tawaaduc, ruuxa kibirka iyo istaagtaagga ku jiro caruur ma salaamay, kala weyn yahay. marka taana tawaaduc baa ku jirto, dar alle ruuxa isu tawaaduciya ilaah baa kor u qaada. xadiiskii ahaana waa soo marnay. wa qaala anas wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yafcaluhu, rasuulka allah sidaa yeeli jiray. rasuulka alle ayaahee caruurta salaami jiray, isagaan kaga dayanaya buu anas yidhi. muttafaqun calayhi. baabu salaami rajuli calaa zawjatihi waalmar'ati min maxaarimihi wacalaa ajnabiyatin waajnabiyaatin laa yakhaafu alfitnata bihina wa salaamihina bihada ashart. baabka wuxuu ka hadlayaa qofku uu salaamo xaaskiisii, ee bilcaamana uu salaamo maxramkiisii ka mida. maxram waa ruuxan guur kugu xirmaynin weyaan, hooyadaadii, ayeydaadii, hawaryartaadii, walaashaadii gabadhay dhashay abti baa tahay, walaalkaagii gabaruu dhalay adeer baa tahay, maxram weyaa kuwa aan guurba kugu xirmin inaad salaamto. gabar ajnabi la salaamo ama ajnabiyaad badan la salaamo, laakiin shardi haddaan fitno lagaga baqaynin salaamidoodii. haddii fitno lagaga baqayo marka la salaamo, amay fitno iyo waxyaalaha keeni kartaa inaan la salaamin weyaan. bihaada shardi baa lagu salaamaya gabdhaha ajnabiyaadka, hadday mid tahay ama hadday badan yihiinba. haddaan cabsi jirin in fitno timaado, dhibaato ma laha, ajnabi aada salaami karto. haddii laakiin fitno lagaga baqayo inay halkaa timaado, waxa weeye inaan la salaamin baa haboon. isbarashada meesha ugu horeysa weyaan, shaacirkii ka hadlayay calaamadaha waxa weeyaan walaa taqrabu zina marka lagaga hadlayay,
asbaabaha keenta xitaa zina inaad samaysaan badaayo wixii sabab u noqon karaa u dhowaanina buu rabbi leeyahay walaa taqrabu zina inaad samaysaan badaayo sababka lagu gaari kara daaya fanadratun faibtisaamun faliqaaun famawcidun fasalaamun buu shaacirkii yidhi markuu ka hadlay arrimaha u dhoweyn karo keeni kara awalan waa eegitaanka fanadratun marka indhaha laysu dhufto laysu dhoola cadeeyo la ballamo laysa salaamo kala gadaal la ballamo arrimo noocyada baa waxaa keenay intaa dhanba laga go wixii fidnaba keeni kara وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال وحو يري كانت فينا امرأة وحا إن دحجوكتي بالعان كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز با لحظة نذاهاتي ما عجوزا عجوز نماذو ننكنا عجوز بالإرادة ناكتنا عجوز بالإرادة وعبارة عن معيتاي عن كبر السن ويان qofku markuu da-diisu weyn tahay cajuuz baa laleeyahay nin iyo naag waa la mid gabadhii ee uu qabay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka loogu bishaareeyey layidhi wiil baad dhali doontaa markaa bay tiri aalidu ana cajuuzun yaa badanaa bay tiri anuu cajuuza miyaan wax dhalaya wahaadaa baclii shaykha ina haadaa la shay-un cujaab bay tiri ariyaabi ama kaagle waya laba cajuuzay wax dhalaan ibraahim 120 jir iyaduna 209 jir ibraahim aan biyaba tifjin karin dhacaanka qoftaana waa 209 jir wa ana cajuuzun bay tiri marka waa cibaara can kibari sinni waya da-weynin bay markaa tilmaamaysaa marka maama cajuuza ayaa noo joogtay ta'khudu maamada waxay qaadi jirtay min usuuli asalqi usuulu salqigu waa geedaha der ee laga dhigto muxuu ahaa cooskan muxuu ahaa ee laga dhigto khudaar cuntada lagu kariyaa ama khudaar ahaan cuntadii baa lagu cunaa waa nooc geedaha ka mida weyaan bay soo qaadi jirtay markay soo qaado fatatraxuhu waxay ku ridi jirtay filqidri dherigay ku ridaysaa wa tukarkiru waxay marka ay ku shiidi jirtay xabbaatin min shaciirin oo shaciirtay ay ku dul shiidi jirtay weyaan sukaris weyaan marka ee cuntada macal wixii lagu cuni lahaa fa idaa sallayna liljumuca jumcada markaanu tukano buu sahal yidhi wansarafna aanu ka baxno nusallimu caleyh iyadaanu salaami jirnay maamadaa baanu u tegi jirnay waanu salaami jirnay marka haddaan fidno jirin waa ka qof ajnabi la salaami karo intaan u tagnaanu salaami jirnay markaabay fatuqadimuhu ilayna iyaduna cuntadaa bay noo keeni jirtay waaga baahina waa jirtay ee waxa weeye futuuxaad badan ma jirin iyadaa loo cunto doonanayayba jumcad markaanu tukano intaan aanun salaamno bay marka iyaduna cuntada ay karisay bay ay noo keeni jirtay bukhaari baa xadiiskaa wariyay qowluhu tukarkiru ay tadxanu weyaan ay shiidi jirtay وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها كودا أم هانئ مقعدي وفاختة بنت أبي طالب كودا علي بن أبي طالب بيلا دلتي نبي ناديرتي سوى يا مركا علي بن أبي طالب ولا شيء ويان قالت وحي تري أم هانئ أتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي كان يمت يوم الفتح مالنتي مكة لفرتي مكة مالنتي لفرتي بين هيد نبي كان يمت وهو يغتسل يسوي قبيسنا وقبيسنا يمركا وفاطمة فاطمنا وقبديس النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها تستر وحكو استريسي بثوب مري سيدا ميل القبر يجيب كل حجرا iyadana gees bay ka haysaa inaan nabiga la arkin halkaa buu ku jira ku qabaysanayay fasallamtu waan salaamay bay tiri waaka in adeertiisi wayaan way isguursan karaan markaa bay tiri waan salaamay wadakarat alxadiida xadiiskay markaa tilmaamtay halkan wuu ku gaawaya laakiin dhammaystirkiisa markaanu sii wadno wa tamaamu xadiisku dhammaystirkiisi muxuu ahaa markay timid ay nabiga salaamtay buu rasuulka alle wuxuu yidhi man haadii waa qofma qoftan timid waa qofma
markaaba waxay tiri qultu waxaan idhi ummu haani'in binti abi aalib weeyaan, gabadhii adeerkaagii abu aalib dhalay weeyaan. markaa buu rasuulka alle wuxuu ku yidhi marxaban yaa biummi haani'in, soo dhowow buu ku yidhi ummu haani. falamaa faraqa markuu dhammeeyey qabayskiisii bay waxay ummu haani tiri rasuulka alle wuxuu u istaagay salaad inuu tukado, 8 ragcadood buu tukaday xilli barqinimeed duxa weeyaan, 3 sac 4 sac subaxnimo weeyaan, xilliga salaada duxa la yidhahdo la tukado 8 ragcadood buu tukaday bay tiri. markaabay waxay tiri yaa rasuul allah, idinkii wiilkii hooyadaydii ahaa, xadiiska dhammaystirkiisi weeyaan, caliy bni abi aalibin bayna tilmaamaysaa, waa walaalkeedii ku abba ku hooyaba ahaa. wuxuu leeyahay hebel buu rabaa inuu dilo. hebelkana muxuu ahaa? ilan waa hebel iyadu ay magangelisay, gaal buu ahaa. ilan dad baa magangal baa meel loo kala orday, waata rasuulka alla yidhi qofkii masaajidka xaramka u ordoo gala fahuwa aamin, man dakhala fii beyti abi sufyaan fahuwa aamin. ee qofkii gurigiisa isku xira oo kale makaa la furtay hadeer, kaaladii baa laga qabtay. ninbaa marka wuxuu ku gabaday uu u orday ummu haani buu magangal ka doontay. marka abu cali wuxuu leeyahay gabadhiya ninkaa inaad soo saarta waya waan dilaynaa. rasuulka waxay ku tiri yaa rasuulallah, qofaan magangelyo aan siiyey buu cali walaalkaygu leeyahay waan dilayaa. rasuulka alle wuxuu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa umma haani'in, qofkaad magangelisay inaguna waanu magangelinaynaa, far la saari maayo. waaba sida diintanada, qof gaala ruux muslim hadduu ku gabado waxa weeyaan muslimiinta kale oo dhan inay nabadgeliyaan weeyaan, dhibaato lama yeeli karo. waa ka ummu haani buu ku gabaday ninkan, uu magangal u doontay, calina uu leeyahay may waanu dilaynaa. rasuulkay ugu dacwootay, rasuulka allena wuxuu ku yidhi qof alla qofkaad magangelisay inaguna waanu magangelinaynaa, wax la yeeli maayo. dhammaystirka xadiisku sida ahaa, laakiin maxalu shaahidka qof ajnabi ah in la salaami karo haddii fitna aan laga baqaynin. qowluhu tukarkiru ay tatxanu waan soo marimi ahaa. rawaahu muslim. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت waxay tiri مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم, rasuulka alle ayaana soo agmaray fii niswatin, waxa weeyaan naaga badan baanu ahayn jamaaco ah. markaa buuna soo agmaray fasallama calayna, wuuna salaamay. waa ka dhibaato ma laha, bilcaan badan meel ay fadhiyaan, rasuulkaa soo agmaray wuu salaamay. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وهذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي محوها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد, مساجد صومر يوما مال وعصبة جماعه من النساء هبينك كمدانا قعودنا يفرديان, مساجد صومر جماعة هبينك كمدا يفرديان. فألوى بيده بالتسليم, قعنت وقو إشاري والسلامي, السلام عليكم بويري مع القعنتي سيبو سيدا وقو إشاري. باب تحريم ابتداء الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون وكفار. باب كوحكا الله أيام إني حرام تاي روح قال أتقبل وضو السلام, روح قال أترادو السلام عليكم, وحرام قطعا لما أقول. أما يهودي هالنقضو, أما النصار هالنقضو, أما بوذي هالنقضو, أما مشرك هالنقضو, وحويا روح قال إن سلام تلقوا بالعبين. وكيفية الرد عليهم يسوى دوك سلامنا قابك تقول عليهم لها سلام يسوي باكو سلامي قابك تقول عليهم لها وحسناه إلا سلامو فردي أي مسلمين يقاليك وذا جيران ما الله وذا فرديو مسلم يقال با وذا فرديو مركا السلامي كرتو نيدا دو وذا ددك مسلمين تا السلام عليكم مركا وديه كرتا لكن وفردي مسلمين يقال با وذا فرديان laakiin gaalo keligood hadday meel fadhiyaana may joogaan inaan salaamta lagu bilaabino, weli salaamta islaamka iyada ugu daran. ilan waa duco, dad duca mutayna ma aha, dad duca mutay ma aha kuwa cusaada ah, dad duca mutay ma aha oo gaalaha weli cisyaankoodii gaalnimo gaarsiisan yahay. وعن أبي هريرة رضي الله عنه
laakiin dadka maanta marka laysu milmay waxa laysu arkay caadi, gaala ha jirto muslim ha jiro iyadoon culays badan ba jirin. rabbi markuu asxaabtu ammaanayo muxuu ku ammaanay? laakiin dhaqankii isdhexgalkii wax badan buu bedelay, bay-adu wax badan bay bedelaysaa, waxaa culaysba loo arki maayo. muxamadun rasuulullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum. kaaba markay noqoto hawsh dadka ilaah caasiyey oo ilaahyo kala samaystay, marka dhiigoodii 100% buu tagayay, laakiin markay iyagu yihiin ruxamaau baynahum kuwa isu naxariista weeyaan. tilmaamyada towraad iyo injiil bay kaga qornaayeen inay sidaa yihiin. rabbi baa yidhi fii suurati alfatxi aayaddii u dambaysay weeyaan, muxamadun rasuulullah waaladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi waridwaana siimaahum fii wujuuhihim min athari الsujuud dalika mathaluhum fi الtawraat ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه إلى آخر الآية. رسولك الله وحي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام. يهود يا نصارت هكب الله بنا السلام، السلام عليكم كوها دهنا. فإذا لقيتم هداد لكلانتان أحدهم متكودي في طريق ودادك لكلانتان muslimku waqtigu ciziga lahaa wayaan baa laga hadlayaa. fadaruuhu ilaa adiiqihi, ma aha gaalku inuu meesha nafiska isagu u qaado muslimku uu noqdo gacan ku gabad derbiyada uu qaqabsada may, bal iyaga loo dhibaato gelinaya. wadadan waasic muslimiinta qaaday haddii labada kulmo gaala iyo muslim, wadadii nafiska muslimka inuu qaado wayaan, xagga ciriiriga iyo derbiyadu iyagu inay maraan wayaan. xilligii laakiin muslimku muslim ahaa baa laga hadlayaa. fadaruuhu iyagii u dhibaato geliya buu rasuulka la yidhi ilaa adyaqihi dhanka ciriiriga iyagu ha mareeneen. muslim baa xadiiskaa wariyey. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحيري إذا سلم عليكم أهل الكتاب يهودي النصارى هدي إذن سلامان فقولوا وحات رادان وعليكم لها انتهى الرافنين. sababtoo ah dad makaariin oo dhib badan bay ahaayeen. fii suurati almujaadala waidaa jaa-uuka xayawka bimaa lam yuxayika bihi illah. kuwa hadday kuu yimaadaan suubano waxay kugu salaamayeen salaam aan ilaahba kugu salaamin. maxay ku salaami jireen? dad khiyaano badan weeye, waxay dhihi jireen assalaamu calayka aw assalaamu calaykum bay mu'miniintu ku dhihi. macnuhu assalaamu calaykum waa maxay? السلام عليكم الموت عليكم ويان، عمرك الله إذن قابيه ويان، هوار ويان عمرك وحو الله إذن قابيه الله إذن دلو ويان. مركدد نوعا ويان ما دام سيدا ايدتك كل سلامة يا خيانا ذا أتنوحا كوف عينة تلضوى عليكم واحد نقول سلامتين هدي دعاتا هدي هوارتا هايبا دشين الله يلو مالي مالما كميدا ويما دان سيدا عاددو دي رسولك اللي كو يراد السلام عليكم السلام عليكم ده السلام عليكم بكو يراد عائشة ويما قشي وعليكم السلام واللعنة بيتري قيري اللعنة بدوشينا الله يلو مهلا يا عائشة رسولك اللي ويا ترتيب ويري عائشة ما هي سلاتها هنا ترتيب إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش فحش هذا الحمد يوحى ربي ما جعل آيركا قبل ترتيب سو مهلا يا عائشة مركا بيتري يا رسول الله وركي كويلاد ماذا المقلن مياه رسولك اللي وحو أبنى إمام مقلن مياه وحان إرين warkoodii baad maqashay warkeygii maadan maqlin miya markii sidaa ilaahayeen buu wuxuu yidhi annagu calaykum baan yidhi taydii baa la ajiibaya toodii loo ajiibi maayo sababtoo iyagu dhaalimiin weyan way dulminayaan hawaar dulmi bay igu dulminayaan hawaar markay dulmi tahayna waa ilaa aqbalka yaale ilaah baa aqbal ilaahna wax dulmi ma aqbalo ilaah wax dulmi ma aqbalay weligaagii allahaagiiba aday kugu soo noqon hawaartu markay dulmi tahay aday kugu soo noqonaysa annagu calaykum baan idhi wax alla waxaad i tirahdeenoo dushiina allah yeelo midaydii buu ilaah aqbalaya toodii la aqbali maayo sababtoo madluumku wuxuu rabbi ku dhaartay la ansurannaka walow bacda xiin yaa madluum waan kuu gargaarayaa
ilan dulmi bay igu wadaan taydii baa la aqbalayaa wacalaykum baan yidhi wax alla waxaad igu sheegteeno dushiina allaha yeelo marka waxbaa degdegii muu rasuulka alle caisho ku yidhi taydii baa la aqbalaya midoodii la aqbali maayo sideediiba hawaar dulmi ah ilaa kaa aqbali maayo wax dulmi ku saabsan waxaanba isha soo saaray oon aragnay diina ay tahay nin waayeel ahaa taqriiban cimrigiisii maa bacda 70 buu ahaa qabuurahaanu joognay qof baa la aasayay wuxuu caado iyo dhaqan u lahaa waa dadka qabuuraha gala in badan dad baa dhaqan u le ka dhintay ama qaraabaha noqdo ama yuusan noqon in loo waco qabuuraha qeyb ka galo dadka la dugo maalinba maanta waxaa dhacday ninkaa dhintay caruurtiisii baa badnaa gidi wali waxay rabaan inay qabriga galaan iyo walaalihiis iyagii baa wada deeqay iyagaana xaqu le sharciyan qofka waxa weeye waalidkiisi in isagu ku tukado isagii uu duugo isagaa ku xaqle dadka kale isagaa laga hormarin hadduu yimidba qabrigii waa la buuxay le dad buu wada qaadaa dadkii way ku wada jiraan waa daduu dhalay daday la dhasheen marka isagii buu nafis waayey taqriiban waa 80 sano 70 sano laakiin xoogganaa qubuuraha geli jiray marka wuu hawaartamay wuxuu yidhi inshaa allah mid buu yidhi soo bax waana wiilkiisi ma soo baxayu yidhi inshaa allah buu yidhi lugtaad ka jabay 3 jeer buu ku celceliyey qabrigii markii laga dhammaaday ninka xaafidaha u noqday waa yeelkii hawaartamayay baa lugta ka jabay wuuna ku dhintay dib dambe uma soo kacin marka dulmiga qofka waalidkiisi qabrigu kula jira xanuun baa isagii waa ilaa soo bax haddii kale lugtaad ka jabay isagaa lugta ka jabay hawaar dulmi sideediba qofkii hawaartamay bay kusoo noqon marka yahuuddu hadday idin salaamaan ee waxa weeyaan faquluu wacalaykum dhaha ilan khiyaana ku jirto assalaamu calaykum inay idin yidhaahdaan baa la arka geeri dushiina allah yeelo weeyaan وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر رسولك اللي وحو أكمري على مجلس فدب أكمري فيه فدق وحا كجري أخلاط من المسلمين والمشركين فدب رسولك اللي صود المري تد مسلمين يدد المشركين بي وضفديا قال أي مسلمين بفددين مشركين تنا عبدة الأوثان بيهايا كو أصنام تعاوذة إيا يهود بهالكا فددين فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلامي ما دام مسلمين أي فديان سيدا بمركا وكو سلامي مركا سيودا جرى دواتم الله لكن قال كلمة أي فديان الروح قال مركا كهورتي ما دو سلامتين هذا نكون بالله بين ولي سلامة إسلامك متفق عليه باب كودن بيح الحديث كلي ويان باب الاستئذان وآدابه بان أقود بدون يعشر كحقيتونه باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه باب كما حكى الله يا إني سنة هاي إلا جعليستي الروح إنه سلامه فدقوا فدقوا مركو ككحو وفارقوا تذكر لفدقوا فدقوا درانو فدقوا ككعاي وعا سنة تذكر وليه فدقوا مذبا كعاي إنه مركا سلامه تذكر لفدقوا ama qofkaad la fadhiday qof kale baad la fadhiday fadhigaad kaga tagaysa assalaamu calaykum nabadgelyo ama dad badan markaad ka tagaysa aad salaamto ama qof kale baad ka ag tagaysa inaad salaamto وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو هريرة وحو يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللي وحو يري إذا انتهى أحدكم من المسجد إلى المجلس متكين دو ميل فدي سوغارو ويمادو فليسلمها السلام ودتك فإذا أراد أن يقوم مركو الروان إنه ككع فردك حدنا فليسلمها السلام مركا ورينا السلام مركا كعربتنا السلام فليست الأولى بأحق من الآخرة مدة هوري ما أهاني مدك أحق نمبدا مدة الدنب واي سمت تهورية الدنب ما مركا لما ذيبا سلامي ما هو سنو مركا تبادنا دتك السلام ميسا مركا فردك كعربتنا دتك سلاميسا رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن والله سبحانه وتعالى أعلم.